Absalaan walaal. Sano barnaamijka ku soo su'aasha waxa qoranaysa. Sano ognahay dagaalada ay naga socdo bariga Soomaaliland. Doorashadana way ugu soo food leedahay. Saameyn inta leeg baan u keen kartaa kalaas. Horta walaal waa ku salaamaya adig iyo TV-gaba. Waxaan anigu rayi ahaan ku talin lahaa nabadda wax ka wanaagsan ma jiraan. Inaga danteena reer Soomaaliland haweeney doorashadu inoo dhacdo si nabadan inoogu dhacdo. Beesha caalamkuna ay inoo aragto in aynu doorashada aynu tahay priority-geena koowaad ama ay inoo tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee Soomaaliland ay ku faanto muddo badan ay ku faani jirtay. Marka reer Soomaaliland waxa u dana oo inay doorashada nabad inoogu dhacdo reer SSC Khaatumana wadada inaga tirsan bay haayeen oo siyaasad xumada wadanka ka jirta ay keentay in ay inaga mowqif kala qaataan. Marka waxaan ku talin lahaa anigu labada dhinacba waxa dan ugu jirta in ay nabad ay ku wada noolaadaan iyagana maamulkoodaasi meel ula gaadhaba ay wataan reer Soomaalilandna inta ay deegaankooda ay doorashadu ka qabsoonto taas man anigu aad ugu talin lahaa magaca Sida Ali Sida waxaan ku soo barnaamijka su'aal baan ku weydiinay koransa waqtiga doorashada inuu ku dadna dagaal nagu soo cusboonaadeen doorashadii ma u dhici karto dagaaladu saameyn ma keeni karaan may saameyn ma keenaya saameyn keenaya waa dhulmaanto waa la iska celinaya waana la codeynaya waxda midna lagu codeynaya midna lagu dagaalamay midna lagu codeynaya soo dhawaad magaca ku bilaabaya wal magacaygu waa Khadar Aadan aad baan u dhawaad waanad mahadsantahay saashan ku weydiinay waxa koran sax waqtiga doorashada inuu ku dadna dagaal nagu soo cusboonaadeen saameyn inta leeg baan u keeni karaan dagaalada ka socda bariga Soomaaliland wallahi walaal saameyn badan bay nagu keenayaan horta dhinac kasta way naga keenayaan tusaale yar baan ku siinayaa qoryaha iyo hubka lagu dagaalamay xoyar xabada ka waxa la siiyaa $1 iyo badh qofka maanta 60 xabad rida wad garanaysaa qasaarihiida in soo gaaray oo qofka waliba u dheertahay noloshiisii kale ee isdib u dheereed ma garanaysaa iyo rasaas wixii lagu qaadayay wixii oo dhan iyo reerkiisii dee oo fahmi kartaa Almaaniya marka waxa oran lahaa Ilaahay culaada inaga joojiyo dadkan walaalay meesha wada degan Ilaahay nabad ha ka dhexdhaliyo madaxweyne Muuse Bixina waxa la nabadda lagu dadaalayo wax garadka reer Soomaaliland ba way inaga waqtiga doorashada ku dagaalada qabow waayaan markaas doorashada dib u dhici karto ilama inay dib u dhici karto sababtoo ah inagoo kaliya xameynaa siixina hay'adaha caalamiga waxa la saxaday midowga Yurub iyo Mareykanka iyo jaamacadda Carabta iyo waxyaalo noocaas ah marka waxay noqonaysaa marka waqti bay qaadanaysaa in laga wada hadlo ay waqti qaadanaysaa 2 bilood ama 3 bilood waxana wax qof iyo 2 iyo 5 iyo 10 toona go'aan ka gaari karaan maaha marka waxaan oran lahaa Ilaahay culaada inaga joojiyo intaas un baan ku soo koobi lahaa shacabka reer Soomaaliland waxaan oran lahaa dadka islaynaya waa dad muslimiina walaalayaal aynu ducayno siyaasaddu baynu ku kala duwanahay waxa jiray dagaaladan hadda dhacay in ulbaanta kula jiro kuwa ka xumaaba jiray baan oranayaa oo la soo maray oo loo yahay marka waxa oran lahaa aynu ducayno walaalayaal salaadeen tukanaba in Ilaahay inaga qabojiyo wixii dhintaan waxaan Ilaahay u naxariisto adiguna xamday aad baad maasantay walahi wala saameyn bay ku yeelanaysaa doorashada waayo bishii loogu talagalay saameyn bay ku yeelanaysaa yeelkeeda haddana waynu codeyn karnaa in iyadoo dagaalku soconayo ayaynu codeyn karnaa waayo dee waxna dad ummad bayna hadii isku wada tirsan oo wada socota marka waynu codeyn karnaa hadda maadaama dagaaladan culus soo kordhay doorashada xigta kuma bedelayna waqtigeeda dhacaysa waayo waa sidaynu inagu ka dhiganaayo haddana inagu saacad dubri karnaa haddana saacad ayaynu codeyn karnaa inagu marka waa codeyn karnaa waa dhici kartaa doorashadu soo dhawaad magaca ku bilaabay maxamed Bara waxaan ku weydiinayaa su'aalka horanaysa maadaama Soomaaliland waqtiga doorashada ku jirtay dagaalada toosna bilaabmeen dagaalada saameyn intee leeg ku yeelanayaan doorashada Soomaaliland waxaan ku yeelan maayaan wala codeynaya marka waa soo weey dagaalku waa iska dhaweeyay buu dhicay waa iska dagaal waa iska dhamaanaysa hadii dagaalku dhacaya saameyn kuma keeni karo ama doorashada dib ma dhigi karo tembeelad waan soo dhaweey maxaa Saalax walaal magacay barnaamijkan ku soo dhaweeyay su'aasha waxa koransa dagaalada imka bilaabmay doorashadina way ku guda jirnaa saameyn inta leeg ku keeni karaan waqtiga doorashada dib ma dhigi karaan maxay ku dhigi waayeen wadankii dagaal ka socdo doorasho macid baa diyaar ah dagaal baa wadankii ka socday yaa way u dhigi karaan ha doorashada dib u dhigi karaan jaamacan ku soo dhaweeyay barnaamijka su'aasha waxa koransa maadaama gobolada bariga Soomaaliland dagaal ka socdan xoog leh doorashadina ay noo food leedahay saameyn ku keeni kartaa xilliga doorashada dib ma dhici kartaa ma doorashada waa dhacaysa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay ciidanka huwantaa saaka iyo shalayba waa calaacalayeen waxaad tidhaahdeen Soomaaliland waxay hub haysay waxay ciidan haysay waxay ciidan mudaniya haysay ciidan beeleedba wayna soo ag dhoobtay waxaan ogolahay nabad wax nabad la yiraahdo ma jiro waxba lagu soo hirtaa maxaa ka soo horeeyay biindana waxaan leeyahay biinda waa haliyay qaran lacagta nuqaadka ka sano rasaas buu siiyaa ciidanka mudaniga
waxaanu kaloo geeyaa qaadka bilaash ugu geeya ciidanka mudaniga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. horta dhammaan islaamka oo reer Soomaaliland baan salaamayaa. horta doorashadu waqtigeedii baa taagan. Una malayn maayo haddii marka hore lagu talagelin in dib loo dhigi karo. Laakiin Soomaaliland way ku filan tahay in ay doorashada gasho. dagaalada soo cusboonaadayna waxa weeyaan khaladaadkii Soomaaliland gashay ee xuduudaha ka soo baxday ee mucaaradii maxaafadda qaarna buur fuuleen qaarna ay ciidanka u soo reebay madaxweynuhu ayaa horta keentay. maantana waxaan leeyahay sida ugu dhaqsaha badan waa in doorashadana la galo oo cidii qaranku doortaana ilaahay oo calfo loo haneeyo xuduudana la soo xiro. nimankana waxaan leeyahay war waynu istaqaanaa oo rag maanta isbaranaya ma nihin waynu isu imanaynaa wax ka shan walaal ma dhigan waxaan aaminsanahay xabaduna way dhacaysaa safartan lagu codaynaya dawaye waxa la xabadda iyo farta la isku wada yaqaan inaga bedel waxba laga reebay doorashada xilligeeda 3 November maalin dhaafmays xilligeeda dhacaysa doorasho tan xabadda laga reebay tan ku codaynaa fikrad ahaanteeda ma waxay ku wacan tahay soo waxa isbedel karaa maadaama dagaalo xoog inaga soo bariga Soomaaliland doorashada aynu galay maxay naga bedeli karaan fikrada waxaan aaminsanahay in ujeedada ugu weyn ay leeyihiin calqaladeeyaan doorashada balse waxaan jecelahay inaan wax loo cindanayn dagaalkuna uu dhacayo doorashaduna dhacayso wixii taadil laga maadmo waa furimaha dagaalka in laga codeyn karaan aaminsanahay anigu waxaan aanaynu yeelin waxa isbedel doorashada mudug wax saameyn iyo wax isbedel aragti ahaanteeda waxa qabayno awood aynu kuna dagaalano kuna codeyno inuu leenahay baan aad u aaminsanahay axmed walaalow soo dhaweynaya su'aal baan ku weydiinay korsi kala wada yartaay dagaalada inagu soo cusboonaaday iyo doorashada isku soo baagmay ma kulata in dib inoo dhici karto doorashada may walaalay doorashadu way dhacaysaa sideeday u dhacaysaa waxbay nagama bedelmayaan waqtigeedii baa taagan doorashada dulbahantana waxaan leeyahay marna calaacalka daaya marna weerarkan gaadmada aad soo wadan daaya laakiin iminka markii laydii wada jeestayna nabad ha ku baaqina marka kalena dee gaadmada soo wadana daaya doorashaduna sideeda u dhacaysaa waqtigii doorashada inuu guda jirnaa dagaalo horlana way bilaabmeen ma kulata inay saameyn dib inoo doorashada dib dhici kartaa inay nagu keeni karaan dagaaladaas way keeni karaan dabcan way keeni karaan hase haatee anigu waxaan leeyahay ilaa buuhoodle laga addimayaan la celinin dagaalka yaan la joojinin 10 cashe ee doorashada madaxtinimada ka hadhana insha Allah taala dee waa in la soo afjaraan ugu jeclaa insha Allah taala saameyn doorashada dib dhici karto way dib dhici kartaa in hadii la ka dhigay 10 casho dambe hadii doorashada muhiimsan waa ogolahay sidii allaala sidii ra'yigeenu ku jiro ama aqoonteenu ku jirto ama nabadgelyo hadii maanta nabadgelyo laga helayo waa okay insha Allah taala marka nabadgelyo waxaan ku weydiinay su'aal qoranaysa maadaama waqtigii doorashada ku jirnay wiig u dambeeyay dagaalo horna inagu bilaabmeen ma kulata in dagaalada saameyn doorashada dib dhici kartaa yihiin ma saameyn karaan labada doorashada iyo dagaalada waxa muhiimsan doorashada dagaalka koowaad ee lagu jira waa in musabbixi meesha la dhaafiyo doorashadu hal maalin saacad xitaa ma dhaafi karto 13 November dadku waa u diyaar haddii ay maalin dib u dhacdo madaxtooyada lagu daadanaya mase marka waxa la doorashada iyo dagaalku isku sibay ma socon dagaalkan iyo waxba doorashada ka muhiimsan dagaalku socon bariga doorashada ma ka dhici kartaa way ka dhici kartaa oo gacano waa lagu codeynaya gacano dalka lagu difaacay magaca walaal waan ku dhooyay walaal magacaygu waa Dusha Maxamed Xasan musliimiin burnaamij media su'aal baan ku weydiinay qoranaysa wiig u dambeeyay doorashada ku jirta Soomaaliland dagaalo horena way bilaabmeen markaas dagaalada tiin doorashada saameyn dib dhici kartaa Keeniyaan saameyn ku Keeniyaan dib dhici kartaa doorashada xilliga doorashada ma doorashadu u dhacaysaa iyagoo si qod dagaalku jiro ay u dhacaysaa la rag ba jooga meesha labada wala isku wadaya ciidanka qaranka uu joogaa shacabka qaranka uu joogaa ee u dhashay dalka wala xoreynaya buu hodana la tagay iyadoo waxaan ku calanka Soomaaliya ka ruxmarayo ayaan arki doonaa waxaas iska faada waxa baqina habar jeclaanay ragga inoo dhiigana ka dhigtay ka dhigtay skorta la qariidayo inagu dib doomo laqoon ma jiraacnee waan soo sabarana ragga ku guda jirnaa wiig u dambeeyay ee Soomaaliland gashay dagaalo horena way bilaabmeen ma ku atay dagaalada bilaabmeen doorashada Soomaaliland saameyn ku keeni karaan dib dhici kartaa waxba walaal assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh dhawaad ma garanaysaa waxba kuma samayn karaan inaga ilaahay wax lagu samayn karaa doorashadana way noo dhacaysaa gacantaana waa lagu difaacaya midigtaana waa lagu codeynaya labada sut baa loo haynayaa soo dhawaad
soo dhawaadhow walaal su'aal baan ku weydiinaya ku soo dhaw burra meediya su'aashu waxay ka waranaysaa waqtigii doorashada wiiga u dambeeyay Soomaaliland guda gashay dagaalada horna way ku bilaabmeen dagaaladaasi saameyn intee leeg bay ugu keeni karaan xilliga doorashada dib u dhigi karaan maya waxba ma dhigi karaan waxaan oran lahaa doorashadana waa la wadayaa dagaalkana waa la wadayaa wadalkana waa la difaaca doorashada lagu galaya tacna dagaal labada waa isku wadaya aad maasanta ugu dambeeyay Soomaaliland doorashada guda gashay dagaalada horna way ka bilaabmeen bariga Soomaaliland dagaaladaasi saameyn intee leeg ay ugu keeni karaan mikood dagaaladu marka hore saameyn way leeyihiin oo colaad weeyi xaaladoodu waa adag tahay doorashadii loo qalqaalayo oo macnaha dee lagu jiro doorashooyinkii hore loo hediyey ee dagaalkani dhacay aniga markaa waxayla sida anigu aan u arko gacantana waa lagu dagaalamaya tanna waa lagu codaynaya waxba bedeli mayso soo dhawaada magaca ku bilaabaya maxamed bashiir daybara maxamed bashiir ugu soo dhaw burra meediya su'aashu waxay ka waranaysaa Soomaaliland wiiga u dambeeyay doorashada ku guda jirta dagaalada horna bariga Soomaaliland bay ka bilaabmeen dagaalada saameyn intii leeg wixii doorashada ku bilaabi karaan doorashada waa lagu codaynayna cadawgana waa iska celinayna gacanna waa lagu codaynayna gacanna cadawgana iska celinayna waxaan leeyahay haddaan dhasigiisnahay annagaa ku filan codka Soomaaliland waa la codaynaysa dowladda cadawgana ku filan